السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وسلامتي بلو بجوتان قصة وعلى سنة 24 عشان كوري waxaan ka hadalnay addition and subtraction of fractions oo aan kaga hadalnay waxyaalaha basic ah addition fraction looga baahan yahay marka qodobka koowaad marka la isku daro fraction ama la kala jarayo waxaanu ka dhignay in ay isku mid yihiin hooseyaashu oo denominator markood mar haddii isku mid yahay aan isku dari karno kala jari karno fractionada maanta waxaan ka hadalnaa markii mixed numberka ay tahay si la isku daro loona kala jaro fractionada marka intaan taas u gudbin waxaan doonayaa inaan tusaale kale ka bixiyo fractionada problem marka qaarkood ardayda ay ka cawdaan marka haddaan casharada hore u galo tusaalahan waxaan haystaa aan tusaale bixino tusaale waxaan haystaa b oo laga jaray b oo loo qaybiyo 2 marka maadaama tan b oo loo qaybiyo b ay fraction tahay casharka ka horreeyna kaga soo hadalnay fraction hooseeya laba hooseeya xisaabta ay lahayd aan ka shaqeynay casharka ka horreeyay tusaalahan marka qaarkood ardayda qaar baa marka xisaabta u timaado fraction iyo number sida u midayn lahaayeen dhibaato ka qabsata sida awgeed halkan waxaan ku haysanaa fraction iyo number iyo b-daas oo number iyo b number u taagan number banoon kartaa marka hooseeyo male marka maadaama hadda hooseeyo soo noo muuqan xisaabtu waxaan ognahay hadduu halka hooseeyo yahay inaan la qorin sida awgeed b-dan waxa u qarsoon hooseeyo b-dan waxa u qarsoon hooseeyo oo halba u qarsoon oo halka lama qoro hadduu hooseeyo hadduu sareeyo yahay waa la qoraa laakiin hadduu hooseeyo yahay lama qoro marka maadaama hadda aan haysto fractionkan iyo fractionkan sida casharka hore ku soo badanay wada midaynana minaynu kala jarnaa fractionkaas hadda labaan haysanaa halkan waa hal marka saan uga dhigi karaa halkan in fraction ma saan uga dhigi karaa waxaan hore u sheegnay fraction markay isku mid yihiin hooseeyaasha hooseeyo hal iyo hadda waxaan haysanaa labo marka labada isku mid yihiin isku dari karnaa kala jari karnaa ramada hadda aan ka jar haysano labadan hooseeyana isku mid haysan isku mid uga karnaa waxaan isku mid uga dhigi karnaa hadda number hal haddii number lagu dhufto laba noo keeni karaa number hal aan ku dhufano laba keeni karaa hal aan ku dhufano laba keeni karaa ayaa jira micnaheedu waa number labo sida awgeed waxaan karnaa qaybtan waxaan ku dhufi karnaa number labo si ay micnaheedu labadaba isku mid u noqdaan because hal lagu dhuftay laba waa labo marka labada haddii tan laba noqoto waynu isku dari waynu kala jari karnaa marka sida waxaan odhanaynaa tan qaybtan laba ku dhufo qaybtana laba ku dhufo marka hadda maadaama laba ku dhufanay waxay noqonaysaa 2b oo micnaheedu labo lagu dhuftay b waa 2b laba lagu dhuftay halna waa labo waxay noqonaysaa loo qaybiyay labo oo laga jaray b oo loo qaybiyay labo qaybtan iyada waxaan ku dhufan maayo sababtoo ah dee number labo waan haystaa waa micnaheedu hooseeyahan ma isku mid ka dhigayaano qaybtan labo waan haystaa waxba ku dhufan maayo marka sidaa awgeed waxaan odhanayaa keliya hadeer maadaama haddii labadan ay isku mid yihiin mid baan ka soo qaadanaa noqonaysaa labadana waan kala jaraa 2b oo laga jaray b waa b marka taas waa ansarkii waa b loo qaybiyay labo marka saasaan uga shaqeynayaa ama sida hore aan kusoo baranay xaraadina dee lowest common factor sida casharka hore micnihi ku sharaxnay haddaad rabtid casharka hore haddaad qaybta kale lowest common factor soo daawan kartaa haddaan tusaale kala bixino oo number b tusaale ahaan oo kale tan oo kale haddaan ku celino casharkan oo kale waxaa haystaa m oo laga jaray 2m oo loo qaybiyay 3 marka si tan oo kale loo yiri ka shaqee calaamadan ku darbeehan kartaa ama ka jarbeehan ku darbeehan kartaa ama ku darbeehan kartaa ama ka jarbeehan kartaa waxa micnaheedu masalan calaamadu wixii aan waa ka jarsan waa isku darsaa sida awgeed hadeer sida tan oo kale b-daas hadeer halkan m baan haystaa ama number baan haysan karaa waxaan haysan karaa number 2 number 5 numberkaan doon haysan karaa sida awgeed sida hal baa u qarsoonyana kaasna sidaan uga dhigi karaa aan uga dhigi karaa hooseeyaha number 3 oo sidoo kale number 3 aan ku dhufanayaa number 3 xaggan number 3 waxaan waa 3 lagu dhuftay m waa 3m waxaan waa 3m xaggan waxaan waa 3 lagu dhuftay hal waa 3 oo laga jaray tan tabtida u duwan tabtida haana sabab because 3 baan inta qaybta waxa ka bedelmay waxa ku dhufmayno waa 2m oo laga jaray 3 ayna waxaan noqonaysaa xaggan labada 3 labadan tilmida ka soo qaadanaya midba sida casharada ku sharaxnay min hadii laba hoos isku mid yihiin hal ka soo qaadanaya labadan waa ka jaray 3m oo laga jaray 2m waa la mid tahay m marka taasina waa
kana waa jawaabtii kale tusaale ahaan oo kale dan tusaale kale bixino tusaale horta intaas ku filan qaybtan hooseeyaha la midaynayo waxaan u gelinaa casharkii marka mixer ka tahay dan aan bixin tusaalahan oo kale aan siin ilaahno tusaalaheena marka mixer ka tahay saan isugu darana tusaalahan oo kale waxaan haystaa hal xagana labaan haystaa xagana saddex oo lagu daray saddex xagana waxaan haystaa afar xagana labaan haystaa saakana la yiri ka shaqeeya intan waa mixing xagana waa mixing numbers xagana waa mixing number labadaas aan soo shaqeyn kara marka waa iska fududahay tan oo kale waa sidii aan hore kale kaliya waxaan sameynaynaa saddex waxaan ku dhufanaa hal number halka yaala number halka yaala waxaan ku dhufanaa number halka yaala kana ku daranaa labadan xalana labadan numberka waa la isku dhufanayaa kan iyo kanna waa la isku darayaa waxa ka dhaxaysa ku dar tan waa ku dhufo tan iyo tan waa isku dhufanayaa tan waa ku darayaa tan waa tabto kale tan iyo tan waa isku dhufanaa tan waa ku darayaa marka labadan waxa u dhaxay halkan waxa u dhaxaysa ku dhufo waa isku dhufanayaa halkan waxa u dhaxaysa ku dar waa isku darayaa marka inta saas oo systemka bas ma raacaya ma sharciga haddaan raaco waa iska fududahay waa iska fudud noqonaysaa marka hadii aan ku dhufto saddex haddii aan ku dhufto hal waa saddexdii labana oo ku darsanay waa shan loo qaybiyey saddex oo lagu daray tabtiga laba lagu dhuftay saddex oo lagu daray afar marka inta uma sameynaya wax kale oo aan micnihiisa sameynay ma jirto saddexdan ku dhufto waa saddexdan ku laba waa lix oo afartan haddaan ku daro waa toban loo qaybiyey laba marka sida hadda casharkii hore aan kusoo barnay waxay timi laba fraction oo kala duwan yihiin labadaas hooseeya kala duwan yihiin labada hooseeya kala duwan marka sida casharkii hore kusoo barnay labada hooseeya maadaama aysan wax common factor lahayn oo lambar saddex iyo lambar laba su'aal ahaan lambar laba haddaan lambar ku dhufto saddex iyo ma jiro ama lambar saddex haddaan lambar ku dhufto ka kaliya ma jiro sida awgeed waa in labada lambarba lambar 2 xagana ku dhuftaa lambar 3 xagana ku dhuftaa ama عشان كده رسمت صبر إنه وسط كم فكرة خالية. صراحة هذا حسكون كره حاجة نمبر 2 كل حاجة نمبر 2 كل فنا حاجة نمبر 3 كل فنا حاجة نمبر 3 كل فنا. سنقول لك هو سياشة سكميت. أما إحنا بس كين كره وسط كم فكرة وسكميت هسنا ولا برلي وسط كم لا نبغى كده ولا برلي. راح نوصل لول نقول فطي عشان وطبعا. ولو كبي لول نقول فطي ليه لول نقول فطي صدق ولا lagu daray hadaan waxaan wasaa markaa 3 iyo 10 iyo hadii isku soo 10 taas waxaan wasaa 30 loo qeybay 3 lagu dhuftay laba waa 6 marka hadda waxaan haystaa laba hooseeyaasha isku mid ah ka soo qaadana labadana waa isku daray waa 40 marka sidoo hore 10 ku soo sheegnay waxaan niri fractionada waa la simplify waa lagu sameyn karaa ama يعني هو expansion lagu sameyn karaa wala badin karaa lambar lagu dhufan karaa ama simplify lambar lagu qaybin karaa hadda maadaama hadda lambar aan lambar wada qaybin karno tan oo kale aan qaybin karnaa laba qaybinana tan laba qaybinana ana waa markaa laba qaybinana tan waa 3 sorry صح tan aan qaybinaa laba qaybinana waxaan waa 3 tan laba qaybinana waxaan waa 20 waxaan waa markaa 20 loo qaybiyay صدق أصدق الحصنوها مركزاً شارك ربحنا ولا نتصلها دي أوكي سؤال دي ممكن كورة دي سؤالها أوكي وأنا يستا لبو وأنا يستحاول أكن الشام ولا قتشري أفر waxaan haysaa 3 xagana 2 haystaa qasiid trio kale labada waa isku dhufana kana waa ku daraa marka 20 hadaan ku dhufto waa 10 iyo 2 iyo 5 isku dhufto waa 10 hadana waa ku daraa 12 masa 12 loo qaybiyay 5 kana laga jaray tan 2 lagu dhuftay 3 lagu daray taas ee 8 lagu daray 3 waa 12 kale loo qaybiyay 2 ayna su'aalaha kama ta ka shaqeynayo labada lambar waa kala duwan yihiin waa 5 iyo 2 common factor-koodu waa 10 أما سواء حنسميه كده سيده هذا نقصه برنا يكره لما هنقول فكرة هالكم شلون هنقول فكرة هالكم وصيف نوعنا طبعا مركا كده نقص كلا شرع أما سواء حنا عندنا وسط كونفتر كلا لما كلا وسط كونفتر كلا لما نمبر واحد طبعا
haddii aadan magaranaysaa aadan aqoona si loo raadin casharada ka hadlay sida awgeed 10 maxaan ku qoranaa 10 marka shantan waxaan qaybinaa 10 kan waa labo labadan waxaan ku dhufanaa 12 kan waxaan noosaa 22 laga jaray labadan waxaan qaybinaa 10 kan waxaan ku dhufanaa 12 kan laba haddii loo qaybiyo 10 waa 5 shantan ku dhufanaa 12 waa 55 marka 22 laga jaray 55 calaamad waxa wata tawana sababta sidoo calaamadu ay kala magaranaysaa sabab calaamada ka horeysay leedahay sida awgeed 55 waxay leedahay minus kana ku darbay leedahay plus bay leedahay sida awgeed haddii la kala jaro labadan waxay noqonaysaa minus 32 loo qaybiyo 10 marka answer waa intaas marka minus kana sababtoo calaamada weyn baa waxa la tahay minus marka taas waa sida haddii aan tusaale kala bixino aan tusaaleena aynu ku magacaabno tusaalahan oo kale d oo kale tusaale d aan bixino tusaalahan oo kale waxaan haysanaa halkan oo kale 2 4 2 oo lagu daray 1 halkan oo kale 5 4 oo kale ka soo qaad marka hadda dhigto kale labada isku dhacayaan kan waa ku daraya waxaan noosaa labadan laba ku dhufto waa 4 laba ku darana waa 8 loo qaybiyo 2 oo lagu daray tan sidoo kale waxaan 4 lagu dhuftay 1 waa 4 lagu daray 5 waa 9 loo qaybiyo 4 marka maadaama labada number ay factor of 2 yihiin macnaheedu labada number waxa ka yimaadeen isku dhufashada number 2 macnaheedu laba lagu dhufto waa 4 laba hal lagu dhuftay waa laba hal lagu dhuftay waa 2 sida awgeed number 2 intaan number ku dhufto macnaheedu waan ka dhigi karaa macnaheedu labada number ba 4 waan ka dhigi karaa number 2 macnaheedu intaan laba ku dhufto 4 baa noqonaysa maadaama labada number ay isku mid noqdeenna waa isku dari karaa sida awgeed waxaan tan waxaan ku dhufnaa number 2 qaybtan iska dhan qaybta kalena waxaa ku dhufan maayo marka sida waxaan odhanaa qaybtan number 2 ku dhufan halkan qaybtan 2 times 2 halkan times 2 ka labada inta number laba number ku dhufan marka maxay soo baxay hadaan ku dhufto maxay soo baxay laba lagu dhuftay 8 waa labadaas laba lagu dhuftay 8 waa 16 hadana waxaan ku 16 loo qaybiyo labadana waa laba lagu dhuftay labadana waa 4 oo lagu daray tan tabteeda ugu soo qaadanaya 9 loo qaybiyo 4 marka maadaama labada isku mid yihiin waxa wada ka soo qaadan xanaanaya 4 labadana waa isku daray waa 25 markaas asaas noqonaya marka tan hujina casharkeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.